madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare xubno ka tirsan golihiisa wasiirada xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi ayaa magaalada Jowhar waxa ay kaga qayb galayeen xaflad si rasmi ah ay wasaaradda arrimaha gudaha Hirshabelle ugu daafuraysay qorshaha istiraatiijiyadda xasilinta maamulka Hirshabelle. Ibraahim Cali Nuur ayaa warkan ka soo diray Jowhar. wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka Hirshabelle ayaa maanta magaalada Jowhar ka daafurtay barnaamijka istiraatiijiyadda qorshaha xasilinta Hirshabelle. kulanka lagu daafurayay barnaamijka waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare, qaar ka mid ah labada gole ee dowlad goboleedka Hirshabelle iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool caasimadda Hirshabelle ee Jowhar. barnaamijka istiraatiijiyadda qorshaha xasilinta Hirshabelle ayaa ah barnaamij wax looga qabanayo dib u heshiisiinta iyo soo kabashada bulshada. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cali Caadle ayaa sheegay barnaamijkan inuu yahay mid ka dhaxeeya bulshada iyo dowlad goboleedka Hirshabelle. laakiin istiraatiijiyadda aan u sameynay aan ku shaqeyn lahayn sanadka soo socda sida la sheegay oo hadaaya ninkii maaragtay la taliya sare Axmed markii uu faahfaahinayay afar tiir lagu sheegay afartaas tiir ay ku taagan tahay xasilintu waa wax dowlad goboleedka oo dhan iyo shacabka iyo ummadda meesha joogto oo wax ka dhaxeeya waa wax qola leedahay ama cid u gaar ma ahin dabcan haddii howl la galo wasaaraddu shaqada way kala yeelan doonaan laakiin inta badan wasaaradaha jira oo dhisan dhammaantood waa ku midaysan yihiin shaqadaas. dhinaca kale madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa sheegay in barnaamijkan la gaarsiin doono dhammaan deegaanada Hirshabelle. haddii aan u soo noqdo barnaamijka maanta aan daahfurayno barnaamijkan maanta la daahfuraayo waa barnaamij annagu aan uga turjumayno fikradeenna waxaan rabnaa inaan idin tusno inaysan annaga xaggeenna wax ku baaqan. waa barnaamij wax looga qabanaa dib u heshiisiinta, waa barnaamij wax looga qabanaa bulshada soo kabashadeeda oo mashaariic horumarineed iyo mashaariic muxuu ahaay maamulka iyo lagu xoojinayo lagu hagaajinayo. waa barnaamij salka loogu dhigayo maamul goboleedyada iyo deegaanada iyo tuulooyinka salka loogu dhigayo. waa barnaamij salka loogu dhigayo in intaas markii la helo mashaariicda horumarinta iyo waxbarashada iyo caafimaadku ay hirgalaan. qaybta ugu muhiimsanu waa qaybta dib u heshiisiinta. dib u heshiisiinta dad heshiiyey ayaa wax la isugu daraa oo wax wada qabsada. dadku markay heshiiyaan ayay wax qabsan karaan. barnaamijkaas dib u heshiisiinta waa ku howlanahay, waa ku jirnaa, laakiin doorkii culamaa udiinka iyo odayaasha iyo hooyooyinka iyo dhallinyarada iyo diyaasbarada inay soo xoojiyaan ayaa ka dhiman. Ibraahim Cali Nuur, TV Universal, caasimadda Hirshabelle, Jowhar.